Bismillahir Rahmanir Rahim. Akhyarta qiimaha badan meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa telefishinka LG Somali TV oo aad kala socotaan warar iyo ilo wareedyo run ah. Aan ka soo xiganay mareegaha caalamiga ah. Waxaan idin soo gudbin doonaa anigoo ah Xasan Mawlid Maxamed Xusni. Haddaba ku soo dhawaada qodobada wararka oo kooban. Ugu yaraan 25 qof oo tukanaya ciidii salaada Adxada ay wadanka Iraq ayaa lagu weeraray qarax oo ku dhintay halkaas. Qodobkeena labaad, weerar ayaa lagu qaaday gargaar bini'aadanimo oo loo waday gobolka Tigray. Qodobkeena saddexaad, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa diiday inuu ka qayb galo xafladda furitaanka ee ciyaaraha Olombikada. Haddaba ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Halkani waa telefishinka LG Somali TV oo aynu ku soo deyno warar iyo xaqiiqooyin xiiso leh. Haddaba daawade, haddii aanad nagu xidhnayn waxaan ka codsanaynaa inaad page-kayga Somali TV follow tilaahdid, sidoo kalena YouTube-kayga, sidoo kale TV-gayga LG Somali TV subscribe saartid, sidoo kalena share iyo like-ta aad noogu samaysid. Comment-ida iyo faaladuna muhiim ayay noo tahay. Taasina waxay nagu dhiirigelinaysaa in bahdayada LG Somali TV aanu soo diyaarino barnaamijyo xiiso leh. Haddaba ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Ugu yaraan 25 qof oo ku tukanayay caasimadda wadanka Iraq, xaafadda Layla Al-Sadr ayaa lagu weeraray bambo. Waxaa ku dhintay 25 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 10 qof. Qaraxan oo lagu weeraray suuqa mashquul badan oo ku yaala magaalada caasimadda ee Baghdad. Qaraxan oo lagu weeraray suuqa caasimadda magaalada Baghdad sida ay sheegeen ila wareedyo dhanka amniga ah. Qaraxan ayaa ka dhacay suuq ku yaala waqooyiga magaalada oo lagu magacaabo Sadr, xilli ay isu diyaarinayeen qoysasku Ciidul Adha oo ku beegnayd maanta ahna maalin weyn oo muslimiintu ay ku ciidayeen farxad iyo raaxayn. Waxaanu ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Baghdad muddo 6 bilood ah. Kooxda lagu magacaabo dowladda Islaamka ee ISIS ayaa sheegatay mas'uuliyadda. Waxaanay sheegeen mid ka mid ah xubnahoodu inuu jaakad isku qarxiyay. Waxaanay soo kala sheegteen weerar ismiidaamin ah oo bishii January ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 32 qof. Ilo wareedyo dhanka ammaanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in haween iyo carruur ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkii. Afayeen u hadlay militariga Iraq ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Iraq Mustafa Al-Kadhimi uu amar ku bixiyay in la soo xiro taliyaha guutada booliska federaalka u qaabilsan amniga aaga suuqa qaraxu ka dhacay. Qodobkeena labaad, madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa diiday ka qaybgalka xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa meesha ka saaray qorshihii uga qaybgeli lahaa xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka dhacaysa Japan maalinta Jimcaha sababo la xiriira cadaawadda labada dal u dhaxaysa. Gardarrada Japan ee ku wajahnayd Kuuriyada Koonfureed intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxay sii horisay xasarada labada wadan u dhaxaysa. Madaxweynaha Koonfurta Kooriya ayaa la filayaa intuu booqashada ku guda jiro inuu wada hadal la qaato ra'iisul wasaaraha Japan Yoshihide Suga. Qodobkeena saddexaad ee ugu dambeeya, weeraro ayaa lagu qaaday kolonyo gargaar bini'aadanimo u waday gobolka Tigray ee colaaduhu aafeeyeen ee wadanka Itoobiya ayaa la weeraray, taasoo sababtay dib-u-dhac hor leh oo ku yimi dadaaladii loogu jiray in lagu caawiyo 100,000 kun oo dad ah oo wajahaya macaluul daran. Hay'adda Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in kolonyo 10 ah lagu weeraray gobolka Canfarta ee xadka la leh Tigray. Dowladda ayaa ku eedeysay inay weerareen dadka rayidka ah ayna xanibayaan inkastay gaashanka u doorureen jabhadda TPLF. Eedayntaas waxaanay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maleeshiyaadka xulafada la ah dowladda Itoobiya. Suurtagal maaha in si madax bannaan loo xaqiijiyo faahfaahinta isku dhaca ama tirada dhimashada. Wadooyin badan oo laga galo gobolka Tigray ayaa haatan gebi ahaanba la xiray. Wariyaasha ayaa in gobolka Canfarta uu noqday mid muhiim ah oo isku xidha gobolka. 100,000 qof ayaa wajahaya gaajo aad u daran. Haddaba daawade, halkani waa telefishinka caalamiga ah ee LG Somali TV oo idin soo deynaya barnaamijyo xul ah isla markaana xaqiiqada ku dhisan oo aynu ka soo xignay shabakadaha caalamiga sida CNN, BBC iyo Reuters. Haddaba
haddii aan nala socon waxaan mar labaad ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartid Somali LG TV si bahda LG Somali TV ay kor ugu qaadaan wararka maalinlaha ah ee ay soo geliyaan. Wassalaamu calaykum waan salaamayaa meel kastoo aad joogtaan bulshada